sheekadii tafaha iyo aargoosatada. diyaar ma u tihiin inaan yaa sheekay sheekadii tafaha iyo aargoosatada? waayahay. beri hore waxaa jiri jiray tafa dhuuni ah kaasoo mar walba tafi jiray ugaarta yaryar ayaga dhanna way ka cabsan jireen. asiga wuxuu aad iyo aad u jeclaa malaayaasha inuu cuno. tafada mar walba kama suusho inay malaayaasha cunto. mar walba malaayaasha weysane waxay cun jirtay cayayaanada yar. ayadana wax malaay kama badbaadi jirin. laakiin waqti dheer kadib tafada waxay noqotay mid butac ah oona tuq ah. wayna awoodi weysay inay malaayaasha cunto. Awow, aniga waan tuqoobay. xitaa malaayaashu waa qaboon ahay. hadda waa inaan wata kala raadiya ama malaayaashu ku qabto. waana inaan u laabtaa gurigeyga. intaasi kadib tafadu waxay u laabatay gurigeeda si ay u soo fikirto qorsho ee ku qaban lahayd malaayaasha. tafada mar walba waxay ku fikiraysay sidee u qaban lahayd malaayaashaas eena qorsho fiican ugu tegi lahayd. ayadani aad ayay marka sii dambaysa gaajo usii qabanaysay. haweenada ka mid ah qorsho ayay keentay tafada. waxay u soo dhaqaaqday dhanka iyo badda si qorshaha ay keentay ee ugu fuliso eena u qabato malaayaasha. waxay bilaaday maalin kasto inay kor fadhiisato badda eena murugooto. mar walba subaxda dhalatan waxay u soo laabanaysa badda wayna ismurjin jirtay. tafada way ogeed inay malaayaasha u naxariisanayaan eena ka murkayaan murugteeda. tafa maxaa ku dhacay maanta? way u murugsan tahay. aniga naftirkeyga waa la yaabanahay. tafada mar walba qosli jirtay maanta way xanaaqsan tahay. ma weydiino runtii wax ayaa ka qaldan. tafo maxaa ku daaray? maalin mugdi waay maanta. laakiin maanta waa maalin fiican. asxaabey, aniga war murugo badan ayaa soo maqlay. maxaa waaye warka xun? aadaa ugu xumahay midaas inaan ii sheego. laakiin maxaa sameeyaani? waxaa arka wax aad u xun. badaniitini way sumaysan tahay. waxyar kadibna inig waxaa laga yaabaa inaad dhimatiin. sidee ku ogaatay midaas? anigoo baahi ihayso geeda iska biibii waayo ayaa waxaa arkay qolo ku tarayaan badda biyo. anigana aad ayaa u cabsaday. inigan waxaa laga yaabaa inay suntaas nii saameyso. bini-aadanka ayaa midaasi ka dambeeyaan. allah hadda aniga ma dhimanayaane? maxaa sameynaa oo ku badbaadaynaa? wax leenoo sheegno ani inaad dhinto barabiye noo sheeg. waa inaa meeshan iskaga guurtiin le. maxaa yeele aniga waxaa soo arkay bad aad u weyn oona qurux badan. midkaana ku nooshihiin ka qurux badan. midaas ayaan u kuuraysiin. adimaana wadeysid? aniga waa nii wadi karaa. waa nii gaarsiin karaa ilaa iyo baddaas kaleete. hataa ininka rabtiin le. waayahay. maxaa sameeyaahe manigdiidi kariye. ininka saaxiibahayga ayaa tihiin. waan nii wadayaa. badda weyn isku diyaariya hadda inaan nii wado. malaayaasha kuma aysan fikirin ayaga in tafada ay cunayso
mar walbana tafada ay jeceshahay malaayaasha. Ayaga keliya waxay ku fikirayaan in la geeyo badda weyneed. Mar walbana tafaha wuxuu u imaan jiray hal malaay inuu wado, markaasna wuxuu geysan jiray gurigiisa, wuuna ku cuni jiray. Tafahana malaayaasha been ayuu u sheegay si uu u cunane qorshahaas ayuu u soo tegay. Maalmo badan ayuuna u soo laalaabanayay malaayaasha. Hal maalin aargoosatada waxay weydiisay tafaha, Tafo, malaayaasha dhan soo bad weyneed ma keenin. haa aniga waan geeyey. ayagan way ku faraxsan yihiin meeshaas quruxda badneed, wayna ku nool yihiin. Aad ayaa anii u dhararayaa inaan arko saaxiibahayga meesha ku nool yihiin, soo ima qaadaysi. maba ogo aniga arkostayaasha inaa aad u jeclahay inaa cuno. hadda ayaaba ku dhihi rabay, hadda waa inaa baxnaa. Doorkaaneeti bad maba ka dhababee. waxyaa dhiman iska sug waa arkaysaay. aargoosatada markay fiirisay adaraarkeedoo idil way ka weysay wax biyo ah ama bad ah, waxayna ku fikirtay in uu khiyaano aad u weyn uu u dhigay tafaha. Tafo, hoos maxaa uu socotaane bad dhan ma walahe waana dejinaysaa aaway badda. aarkoosatoy adiga waa ogeed inaa aniga tafahay waan isoo raacday. hadda ma iska sugtid, badda waa kaareenaaye. wax waa ka baqin, waa kaareenaa badde. Markii la soo gaaray tafaha gurigeeda, wuxuu arkay aargoosataha lafaha saaxiibihiisa oo meesha dhooban, wuuna fahmay saaxiibihiisa inay ayada baabi'in jirtay. asigana wuxuu bilaabay inuu surka goosto. tafaha way u adkeysan weysay xanuunkay u geysanaysa aargoosatada, wayna soo dhacday. Waxaa rabtaa soomaan aniga inay cuntid. midaaseeti ma kuu suurta galayso. Saaxiibaheen adi ayaa cuntay, maanta waa dhimanaysaa. malaay dambana ma cunaysid. tafada marba marka sii dambeyso dhiiggeeda aad ayuu u sii taadanayay ilaa marka dambe ee ka dhimato. aargoosatadani waxay gaartay guul aad u weyn, maxaa yeelay waxay dishay tafada mar walba cuni jirtay malaayaasha badda. kadibna aargoosatadu wuxuu u soo laabtay malaayaasha kaleete, wuxuuna u sheekeeyey in saaxiibihiisa la cunay iyo inuu tafadan asiga dilay. Markaas kadib badda waxay noqotay bad nabad ah. Haween wanaagsan caruurey.